وأنا سلام دمان صاحبتها كحنا جنالكنا بدايات أيان إذا كان مهد علنا سيدو ونكسنا دولة ساعتان مقالة برتان صادقة سودا بعد صاحبي المانتو حاربا إن إذا لو ذا حق يحقيقون وقارا فيلم كعنك أيتيري ميري سبني كاسو كميدا أفلامتي أدكو حسين جيرين سومالو دو حليق شريموينكا الدو حينير وذاقي دون حق وقارا فيلم كات إنتان وقود قلنو حكا عشان إلى جانل كسو بيرتو سبسكرايب نو صارتو دي مقالكات كيشنا لاقي نو صار سي شير قري ولو ذاك أصحابتا سودا بعد صاحبي markaan eegno filimka caanka ah Terry Miri Sabni micna ahaan wuxuu noqonayaa de adiga aniga riyadeyda baa tahay ama riyadeyda tahay ay micna ahaan noqonaysaa waxa uu soo baxday ama uu soo baxay aan leeyahay saaxiib 6 December sanadii 1996 ayuu soo baxay filimkan Terry Miri Sabni waxaan hogaamiyalka wada ah jilayaasha kala ah Jandurjur Siin Soomaalidu waxay dhahaan qaar atorihii daag qaar dhaho atorayna buurka garshaam qaar ugu yeero sidoo kale filimkan waxa qayb ka ah Arjad Warzi ama Hindustan waxa taqaano dhanka bla waxa ku jirta gabadha bariya giil lagu magacaabo gabadha filimkii Sirfitum ee jeeg Sanjay Kapoor iska soo muuqdan waa filimkii jaceelkii bashqadaha la isku diray gabadha ku jirta weeyaan sidoo kale waxa ku jirta gabadha lagu magacaabo Simran Baga waa gabadha ku jirta filimkii Muqaddar ama Shibaah oo Mitum walaashiis ku jilaysay filimkan waxa yaani agaasimo ka ah ninka lagu magacaabo Joe Agostino soo saaran waxa ka filim jilaaga caanka ah Amitabh Bachchan markaan eegno filimkan waxaa la saaray tiyaatar gaar ah 105 tiyaatar lacagaha lagu qarash gareeyay waa 3 karoor lacagaha uu keenay waa 7.7 karoor markaan eegno filimkan natiijo ahaan waxa uu noqday filim hit ah ama filim guuleystay saaxiibayaal xaqiiqooyinka laga diiwaan galiyay ilaa hal iyo labo haddii aan taataabano ama aan eegnana waxaa leeyahay filimkan waa filimkii ugu horeeyay uu sameeyo ama ay sameyso shirkadda lagu magacaabo ABCL taas uu leeyahay ninka lagu magacaabo Amitabh Bachchan ama Ali Dheer waxa taqaano xaqiiqada labaad waxaa leeyahay filimkan waa filimkoodii ugu horeeyay ka soo wada muuqdaan jilayaasha kala ah ama aktarada kala ah ninka lagu magacaabo Jandurjur Siin iyo atoraha Arjad Warzi ama Hindustan kadib filimkan waxaa iskala soo muuqdaan filim kale oo lagu magacaabo Betabi xaqiiqooyin kale laga diiwaan galiyay waxaa kamid ah filimkan waxaa leeyahay waxaa marka hore la rabay in agaasimo looga dhigo nin lagu magacaabo Varad Rangijari ka hor inta uusan dhiman laakiin marka uu dhinto waxa yaani agaasimo looga dhigay ninka lagu magacaabo Joe Agostino xaqiiqada ugu dambeysay aan kala wadaagi doono filimkan waxa weeyaan saaxiibayaal waxa leeyahay filimkan heesaha ku jira waxay noqdeen heesa classic ah ama aad loo jeclaystay dhagoosigooda waxaana ku jirta sidoo kale heesta aan baxday ee Akamari oo larkii Akamari oo ku luuqeynaya ninka lagu magacaabo Kumar Sanu saaxiibayaal haddaba intaas ayaan kusoo gabagabeynaa xogtii xaqiiqooyinka aan kala wadaagay filimka lagu magacaabo Terry Miri Sabni